kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastood inoo daawanaysaan ku soo dhawaada Edlaw Sports Channel oo aad ka daawataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha kubadda cagta. qodobada aan maanta ku soo qaadi doonana waxaa ka mid noqon doona xidiga daafaca dhexe kaga ciyaara kooxda Arsenal una dhashay dalkaasi Faransa Laurent Koscielny oo 33 jira ayaa waxa uu target u yahay kooxda Barcelona. sidoo kale kooxdan ayaa waxa ay doonaysaa xidiga ka tirsan kooxda Chelsea daafacana kaga ciyaara xulka qaranka dalka Brazil David Luiz oo 31 jira sida ay daabacday majalada Mundo Deportivo ee ka soo baxda gudaha dalkaasi Spain. kooxda Barcelona ayaa rabta in labadan ciyaaryahan ay ku xoojiso qaybteeda dambe ee daafaca dhexe si ay sare ugu qaado ku guuleysiga tartanka Champions League iyo La Liga dalka Spain oo ay kooxdani u hamuun qabto in ay mar kale hantiso. ciyaaryahanka kooxda LA Galaxy iyo weeraryahankii hore ee xulka qaranka dalkaasi Sweden Zlatan Ibrahimovic oo 37 jira ayaa waxaa suurtagal ah inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee AC Milan isagoona heshiis dhan 6 bilood la gaari doona. xidigii hore ee kooxaha Manchester United iyo Inter Milan ayaa wacdara ka dhigay kooxda LA Galaxy ee ka ciyaarta horyaalka dalkaasi Mareykanka kadib markii uu ku biiray bishii February ee sanadan. ayaa iminka waxaa suurtagal ah in uu dib ugu laabto kooxda AC Milan isagoona xidigan u ciyaari doona kooxda Rossoneri inta ka dhiman xilli ciyaareedkani. kooxaha Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City iyo Manchester United ayaa waxaa suurtagal ah in ay wajahaan ficil sharciyeed kaga imaanaya kooxaha kale ee Premier League dalkaas Ingiriiska ka ciyaara haddii ay ku biiraan soo jeedinada koobka European Super League oo bilaabmi doona sanada 2021. Torgan Hazard walaalka ka yar xidiga garbaha kaga ciyaara kooxda Chelsea iyo xulka qaranka dalkaasi Belgiumka Eden Hazard ayaa waxa uu sheegay in 27 jirkan uusan ka dhaqaaqi doonin garoonka Stamford Bridge isagoona ku biiraya kooxda Real Madrid bisha January ee soo aadan. kooxda Real Madrid ayaa doonaysa in ay mar-un gacanta ku soo dhigto xidigan Eden Hazard. dhanka kale Eden Hazard ayaa qodiisa ka dhawaajiyay in uu ku riyoodo inuu mar-un ka ciyaaro garoonka ay ku ciyaarto kooxda maryaha cadcad ee Real Madrid ee Santiago Bernabeu Stadium. weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Juventus iyo xulka qaranka dalkaasi Portugal Cristiano Ronaldo oo 33 jira ayaa sheegay in uu u xiisay la ciyaaritaanka xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee kooxda hayeen Wayne Rooney oo isna 33 jira kaasi oo iminka u ciyaara kooxda DC United ee horyaalka dalkaasi Mareykanka ee Major League Soccer. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay dib wada hadallo ula furan doontaa wakiilada xidiga kooxda Chelsea iyo xulka qaranka dalka Brazil garbaha kaga ciyaara ee William oo 30 jira kadib markii kooxda Blues ay ka biyadiiday 3 yabo oo kaga yimid kooxda Barcelona xagaagii aynu ka soo gudubnay. kooxda ku ciyaarta garoonka Camp Nou ayaa xidigan aad u xiiseynaysa ayadoo ay suurtagal tahay in bisha January ay yabo xidigan ka soo gudbiso. William ayaana ka dhawaajiyay in uu ku faraxsan yahay ka ciyaaritaanka garoonka Stamford Bridge iyo magaalada London caasimada dalkaas Ingiriiska kooxda ka dhisan ee Chelsea. ciyaaryahanka afka hore ee weerar kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo xulka qaranka dalkaasi Senegal Sadio Mane oo 26 jira ayaa meesha ka saaray walaaca ku aadan xaaladda qandaraaskiisa isagoona ku adkaystay in xidigani uu ku faraxsan yahay in uu muddo dheer ka sii ciyaaro garoonka Anfield Stadium. waa tahay daawadayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa maanta barnaamijka ciyaaraha oo aad ka daawanayseen channelka Edlaw Sports Channel. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso. mahadsan.